waxay ka baqaan fake nimadooda in lagu ogaado waxay ka baqaan kalsooni darradooda ayay ka baqaan hadda inay kusoo dhacaan ay supply waayaan faleebadii inay waayaan bay ka baqaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيات قالقة السلام قالقة وكل إيلاب أيها السلامي كسو دوالي شانك أولاشني إشراف ومارك ليدين وضع فيديو هرله هدي أدكو عصوب تحجانك سودو بانقلي هاي وسبسكرايب بسار إن شاء الله تعالى هدي أهرني ولا جوبتين وتكون هسانتا هاي لسو عشدا هذا كومنتسكا لايكسكا يكون دوالي إن شاء الله تعالى حرجيني كل جينا ولا في عنتهين مربط كسو بنتهين تكونوا قبطان عافماد iyo umurihiin oo ilaahay idin fududeeyay inaad ku jirtiin annaga ayamahan jawi kulul baan oo jiray weekend iska fasax u badan buu ahaa bisha May oo bisha ugu fasaxyada badan fasaxyada guud markii laga soo tago oo sida Christmaska iyo summerka iyo Easter waxay dhahaan post feriyaha kala dhahay marka laga soo tago May waa bisha ugu fasaxyada badan intaas maalmood yar waxay leedahay dhahaan diimahooda kuwa ku saabsan iyo kuwa maalintii wadanka green laws taagan maxaa yiraahdaa maalinta dastuurka la dejiyay 17 May waxa waaye holidayada ugu waaweyn wadanka waaye khalqullah oo dhan intuu soo labisto ama sida ugu quruxda badan oo labisan karo labisto ama dhaqameedkeeda ay ku labistaan ayaa calamadii la qaataa la babiyaa oo maalinta carruurta sidoo kale ice cream iyo cunaan oo ay farxaan horta yarana iskuulka gaarina xanaanada ayaa la dabaaldegtay maalinta 16 maalinta 12 maadaama ay xiran yihiin maalinta 16 ayay la dabaaldegaan carruurta yaryar oo xanaanadaha dhigta marka waan ka qayb galnay annaga waxaan aadnay xanaanadii oo inta la soo wada labistay oo calaamada la soo xirtay oo ka bacdi roob baa ay maalintaas ay banaanka u baxnay oo is wada raacnay xaafadan ku soo wareegnay heestii calanka la qaaday adigu waa la soo baashaalay marka lagu soo noqday xanaanadina macmacaan iyo adduun waxa la cunay adigu waa iska feestay maalinta 12 waa maalinta weyn maalinta 12 sanadkan 12 sanadka hore oo 2 sano inta corona loo xirnaa dadka ay ku diimayaan banaanka in isu soo baxo la isku isdhex gali karo waxaas oo la isfasaxay oo xajiyadii wixii iska qaaday marka xajiga inta laga qaaday la khalqullah isu soo baxeen ayaan ka qalgalnay ka sii yara gabadheedana aad iyo aad ay u xiiseenaysay waayo iskuulkooda oo ka qayb galay iskuulada inta badan marka way ka qayb galaan ama iskuulada dhan way ka qayb galaan in ay isu soo baxaan oo calaamadii la qaado oo iskuulka magaciisa bahal yar oo calaamada iskuulka magaciisa lagu qoray la is horwado oo kuwiga waaweyn saas oo kale sameyn jireen marka maalinta sida loo socdo ayaa waxa la tagayaa guriga boqorka hortiisa boqorka dadka salaamaya marka maalintaas waa maalintii dadweynaha siiba carruurta sanadka gabadhayda waxay rabeen inay magaalada xaafadda ku soo wareegaan سأوجد واحد كان مرة على سكولك قالنا الآدمي ما كنا صغير باشاسية سجلت ما كانوا حكوا آدمي معناه كانوا إذا فصحة ونسكن نحسنا مرة معناه الحمد لله شمعي هنا يا ريكا بيني سميني يعني وآخرس أيام أنت هذي بدني كتير امتحان بقى يوسف والله ما كنت امتحان كسر ديارني هالدبدات أنت هالدبدات أصحابي فيديو مهمة جدا هذا وكان حوالي سؤالي أسوي دي سنة هذي بدني انت عرفت السؤال وقالي وحربا إنا يعني الشيء كعذر ذات وحواي مشغول كي أعرف وبدأي هاي أنا كنا هاي قف I care too much يا مشغول كي نا وبدأي هاس كيف أنا كرتان هايو أرضيات شقاء يعرور إيو سكول إيو وحياة سكول هيسا وأنا تشعل هاي دتك كحران channel كأم ولا لها إلى سو حريريا سي بقول كي بقول إن أن ولا سعد حالكود ولا تشوف وغور هايون ولا إن كلا تعلها أموتي which I do وأنا كلا تعلها هاي لكن سألت أيها وحيد هاي problems كذا أي نوعان بس ما حسوستي وحنا أنا قاعدين كذي كتير ناس problems كذا كلا problems كني نقولين يا إن تعاطف قف عاطفة له وناك إيا كلا تعلان إيو caawimaad iyo wax walba dadka u muujiyo waa muhiim way fiican tahay telefoonadii aan qabanay ayaa igu noqotay hawl extra ah oo waqtigii ayaa ii saamaxay la anigoo jecel in aan qof walba dhageysto on maxaan ku raadayay
caawiyo waxaan ka caawin karo tala ah waxa dhibaatada ay ku jiraan kala sheekaystaan kaliya ayaa badan ah ilaane inaan u noqdo waan jeclahay waanan sameeyaa hase yeeshee waqti badan ayay iga qaadatayo saacado badan ayaan ku kharash garayaa isbuuc walba kama xumi hase yeeshee waa in wixii laisku dheeli tiraa soo ma saas ogeed marka waxaan rabaa inaan soo jeediyo in aan haddii ilaahay idin rooyahay ila cod haddaa ii dhaaftaan waan kasoo jawaabi qoraal haddaa ii dhaaftaanna waan kasoo jawaabi hase yeeshee telefoonka inaan qabtoon ku hadlo waxay iga qaadataa waqti badan idinkoo iga raali ah saas ii sameeya insha allah tacaala marka qofkii laga fursan waayo marka dee dantu ka fursan weyda inaan la hadlo I will consider insha allah tacaala laakiin hadda xaalka ah ayaan aniga uga cudur daarnaya inaanan qaban karin telefoon ku hadal ah ya laakiin cod haddaa ii dhaaftaan ama qoraal ii dhaaftaan boqolkiiba 99 boqolkiiba 100 waa ballan inaan kasoo jawaabo hadday maalin u qaadato laba u qaadato laga yaabo laakiin 90% boqolkiiba 100 waan usoo jawaabaa dadka waan dhihi karaa 99% intaan arko waan usoo jawaabaa waan arkaa laba meel laga soo xiriiri karna waxaa waaye Facebook Messenger WhatsApp numberkayga waan kusoo qoray intaas markii laga soo gudbo marka asxaabay ya su'aalihiinni baan u galayaa dadkii weirka ahaa oo faniga ahaa ya channelkana waxaad moodaa inay narcissist hadalkiisa iska qaadatay ya qadarna maasha afcal waa wax bulshada u baahan tahay waanan inta aniga karaan iyo awood ugu ahna waan sameynaya waan ka hadli doonaa insha Allah tacaala wixii ilaahay igaga aadiyo oo igu karansiiyo oo ifahansiiyana waan la wadaagayaa waxaan runtii aniga waxaan jaamacada intaan u galay aan soo dhigtay ma aha psychology aan dhigto oo psychology waxay iga furnaa psychologist-na ma ihi runtii laakiin psychology waxbaan ku bartay you know my field of education psychology baan ka buuxa psychology ahaan maadada psychology la yiraahdo ahaan jaamacada hadda koor baan u galay waan dhigtay laakiin degree psychology ah anigu ma haysti psychologist-na ma ihi clinician-na ma ihi saas ogeed psychologist-yaasha laftirkooda ayaaba ummadan khibrad zaid ah u lahayn marka wax aniga interest ama danayn gaar ah aan danaynayo ogeed ayaan u baaran u fahmay waxay yihiin qof boqolkiiba 100 fahmi kartaa ama shakhsiyadaha bini'aadamka si kala duwan yihiin ayay narcissist-yaasha iyo dadka u saameeyaan oo kala duwan yihiin laakiin waxyaabo ay ka wada sameyn yihiin ayaa jiro oo dysfunctional nimadooda iyo distraction-kooda iyo jahwareerkooda iyo xaasidnimadooda iyo dareen la-aantooda iyo waxaas oo dhan ay ka sameyn yihiin marka su'aalaha maanta haddaan ugu daqo su'aasha ugu horeyso oo daawayaasha mid kamida iisoo qoray waxaa waaye maxay la murmaan ya waa la isla fahmay inay murmaan waana kasoo hadalnay waana arkay asxaabta ku xiran channelka hayla soo wadaagaan muran maxay la murmaan waxay la murmaan waxa ugu horeysa waxaa waaye in ay kiis iska waalaan arrin ayaad ku qabsatay arrin ayaad isku fahmi weydeen wuxuu doonaba ha ahaada hadal caadi looga hadlayo looga sheekaysanaya la isku fahmi weyn karaa qofkii markii qofka kale uu ka qancin karaa meesaas markii wadana saasaan ula jeeday masaasaan ula jeeday okay saas aan u maleeyay ya marka muranka inta badan qofku waxaa keenay in qofku istifaacayo baa caadi ahaan keeno dadkana marka de istifaac dabiici ah baa ku jiro 24 hours istifaacayaan talabaad ay muranka u adeegsadaan waxa waaye in ay nabadgelyada iyo nabad in la ahaado ay ka soo horjeedaan in wax qasnaadaan oo la buuqsan yahay oo la dagaalsan yahay iyaga energy bay ka helaan in ay adiga ka xanaajiyaan oo ka dhiigaaga kaciyaana energy bay iyadana ka helaan so iyaga waa wax cajiib ah wax sababta I don't know waxay sababta energy uga raadinayaan ma uga helaan aniga ma aqaan laakiin waxa waaye waxay ku dareemayaan in ay hadday ka muran siiyaan waxay dareemayaan controlka iyaga haya ya adiga ayagu xanaaq run oo xanaaqsan yihiin ma xanaaqsana markay murmayaan not necessarily laakiin adiga ay ka xanaajinayaan ay ku macaansanayaan energy ka helayaan taas waa mid labaad waxa waaye hadday fahmaan ya daawada su'aashaas soo kala qaybay soo weydiiyay markaad ku fahantid waxay yihiin amaba de feegnimadooda aad ku fahantid maxay la xanaaqaan ama la dagaalamaan ama waxa waaye way ku fahantay soo maaha si iyaga adiga down kaaga dhigaan oo ku hoos mariyaan oo ku waxba kaaga dhigaan ayay dagaal bilaabaan markaas dagaalkii iswaalkii buuqii waxaas marka taasna sabab way noqon kartaa sabab si kale adeegsadaan way jirtaa su'aasha labaad qofka soo weydiiyaa waxay tahay maxay isla miskiimiyaan sidoo kale sir ay adeegsanayaan waaye isla in ay
aad ka cafisid aadan ku qabsanin aadan ku maxaan ku radaa aad iska ilowdi aad isdhaafisid wixii ay sameeyeen oo dhan inay maskiin iska dhigaan victim iska dhigaan dagaalkii murankii qeyladii beentii wixii u shaqeynaya soo maha waxay rabaan inay tan isku dayaan inay miskiimiyaan oo victimkii iyaga iska dhigaan oo dulmanihii iska dhigaan ayay ku fiirinayaan marka taasna waa hub kale ama sir kale ay adeegsadaan sitooda hawshooda ugu socoto ta saddexaad su-aasha saddexaad ayaa waxay sheegaysaa sidee loogu sheegi karaa khaladkooda simple answer waxa waaye ma loo sheegi karo jawaabta fudud ayaa waxay tahay ma loo sheegi karo waayo maba aaminsana inay khaldan yihiin waxaan micno lahayn haddaad isku qabataan ama aad ku confront garaysid ayayba cirka galaan se haddaad ku tiraahdo waad khaldanta dadkan macsuum bay isleeyihiin dambilaawayaal bay isleeyihiin marka haddii aad ku tiraahdid waxbaa kaa khaldan ama waad khaldan tahay ama adigaa khaldana dee ma qaadanayaan marka dambiga iyo khaladka iyo mas-uuliyadda wax walba in adiga dushoodid bay sugayaan in iyagu waxay rabaan kaliya inaad ammaantid inaad tiraahdaa u sarreeya inaad tiraahdaa ma adiga kale lagu arki karaa inaad is-iloosiisid inaad mamarsiyo u samaysid waxay u khaldeen sababtay u khaldeen waayo mar walba waxay khaldaan excuse bay u hayaan haddii ay ku khayaameeyaan oy ku aflagaadeeyaan oy ku dilaan oy waxay doonaan ay sameeyaan excuse bay u hayaan marmarsiya u hayaan sabab bay u hayaan waxay ku dhahayaan saas iyo saas iyo saas awgeed si aan of course maskaxda bini aadanka geli karin oo caqli gal ahayn ayay ku dhahayaan taas ayaa u sabab ahayd adigana waa ta u sababta ah inta badanna waa adiga ayay adeegsadaan marka aad wixii adiga xallisid sidaad doontid baad ku xallisiday unbaa wax ku hagaagaan ya oo weliba eedeedana haddaad hagaajiso xallisa xataa eedeeda adiga waad leedahay eedeedii baad leedahay oo sibaad u khaldanayd marka khaladna ma galo khalad maba yeeshaan so maba u sheegi kartid waxaas ku khaldanayd ma dhihi kartid asha kale oo afraad aan jeclahay inay tahay ayaa waxay dhegaysaa ma ka xumaadaan in lagu yidhaahdo narcissist ayaa tahay ma ka xumaadaan inaan narcissist lagu dhaho iyaga awalan horta amaba dee qof noocaas oo dabiicad xun oo saas ahada tahay again waxa waaye qof wax in lagu sheego jecel ma jiro narcissistnimo wax qurux badan oo fiican maaha qof bini aadam ah oo in lagu sheego ma jiro marka qofka haddaad ku tiraahdid waxbaa kaasi ah ama waxaan ku rahdaa narcissist tahay ama wax maskaxiyan baa wax kaaga bahalkaysan yihiin amaba dee you need help dee markaasaa cadownimada aad declare garaysay waxaad seefihii in loo soo baxo unbaa ku xigta markaas kow waxaa laga yaabaa inuu falcelintiisa asaga ka imaato oo ah qofka maan ujeedaya ama iyada whoever dee uu kula yaabo maxaa ka hadlaysaa ta kaloo laga yaabo inuu sameeyo waxaa waaye in uu kugu dhaho adigaaba ah dabeecadaha noocaas saasaa leedahay obviously dadka waxay caan ku yihiin inay eeda iska rogaan oo adig kugu rigaan sooma marka waxay u badan tahay inay ku dhahaan adiga saas ah ayay u badan tahay ta kale hadday waxaas oo dhan soo wada shaqayn wada runtii laysla imaadana of course qodobkii koowaad su-aasha ugu horreysay su-aasha koowaad jawaabteeda ahayd baa imaanayso in uu ku baabi'iyo oo ku bahdilo oo kugu xanaaqo oo kula dagaalo si uu asaga u wino lianna wixii baad ku fahantay ya sidoo asaga u wino u guuleysto uu adigana kuu bahdilo kuu baabi'iyo kaaga dhigo inaad adiga qofka wareersan tahay ayuu sameynaya marka saas awgeed faa'iido ma keenaysa inaa lagu yidhaahdo narcissist ayaa tahay ama waxbaa kaa khaldan yaa su-aasha ugu dambeyso ayaa waxay dhahaysaa oo shanaad ayaa waxay dhahaysaa sidee looga badbaadaa dadkan sida looga badbaado waxaa dhowr jeer nama ka hadalna hadda kahor waxaa waaye in horta aad fahansan tahay marka calaamadihii red flagskii iyo calaamadihii mooto seasonkii mootada la maraya mootaa dhararaqleh banaanka iga raali ahaada knowledge aqoon kororsi fahan darsid in aad samaysid aad darisid qofkan dabeecadihiisa aad u adeegsatid marka waxyaabihii caawin jiray aadan la murmin la wadin aadan ugu dulqaadanin khaladaadkiisa aad madaxa ugu sii salaaxin xuduud aad ka samaysatid aad haddii danta kugu kaliftana aad ka fogaatid aad iska ururisid
aad ka dheeraatid taas ayaa waxyaabaha looga badbaadi karay ka mid tahay. haddaad ka badbaaday oo aad ka fogaatayna inaad adiga iscilaajisid ood soo kabatid ood maxaan ku radaa waxyaabihii dhacay oo dhan dee aad ogaatid inay yihiin waxyaabo qofkaas ka imaanayay adiga aad shaqo ku lehayn oo naftaada dib u soo dhisid. ta kale su-aal baa la socota oo qofkii soo weydiiyey waxa waaye maxay ka baqaan iyaga? waxay ka baqaan fayknimadooda in lagu ogaado, waxay ka baqaan kalsooni daradooda ayay ka baqaan, hadle inay kusoo dhacaan ay supply waayaan, faleebadii inay waayaan bay ka baqaan. waxay ka baqaan in loo arko in lagu fahmo inaysan all that ahayn, balaayada qofkaas iyagoo dadka dhaadhicinayaan inay qof balaayo ka dhacda yihiin in lagu ogaado inaysan waxba ahayn bay ka baqaan. inay weak qof dad daciif ah oo waxba ahayn in lagu ogaado inay yihiin bay ka baqaan. waxay ka baqaan in sirtooda la ogaado bay basically ka baqaan. maaskiga iyo wejiga wixii ka saarnaa oo isqarintii ay isqarinayeen inay fashalmaan bay ka baqaan. waxa waaye you don't wanna see markay fashalmaan ya oo maaskiga uu kasoo dhaco waxay awoodaan inay sameeyaan haddaadan arkin ilaahay kuma tuso horta and you don't wanna see marabtid inaa aragtid. marka dadkan waa bahalo waxaa lihi jiray sheep in wolf's clothing, waxaa waaye miskiin seefle way basically. sheep in wolf's clothing waxaa waaye miskiin seeflooyaan waaye. marka videoga intaas maanta ku leeyahay su-aalihii jawaabihii insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaahdo waan kusoo celinaa mar kale. waan jeclahay inaan to be there for all of you. wallahi billahi si kale ilaab ah ma habeen dhaweed gabar baa ila soo xiriirtay 4 saacadood baan hadlaynay aniga familigayga way yaqaanaan 9 habeenimo wixii loo gaaro 8 habeenimo horta caawinta wixii la seexseexinaa waqtigeeda waaye. after that nobody calls me because ana waxaan ahay dadka seexda waqti hore. just to show you saan idin fahansiiyo inaan kala jeclahay oon aan ka damqanayo qof bini aadam ah oo dhibaataysan oo raba dhibaatadiisa inuu kula wadaago ama kaaga sheekeeyo ama ka xal kala gaartid. hadalkan ma rabo inaan ku gooyo qofka. so 4 hours baan hadlaynay oo habeenbar ku gaaray inta hore iska raadinaysay waxaas haddana mana ka xumi maasha allah. alxamdulilah ilaah waxaan uga rajeynayaa horumar iyo farxad iyo reereyn inuu siiyo. she dodged a bullet horta gabadhaas bimacnaa waxaa waaye wax balaayo kusoo socotay buu ilaahay ka qabtay oo shaydaan ahaa. alxamdulilah marka hore u socda waan leeyahay. and yeah so basically what I'm trying to say is waxa waaye walaalayaal kusoo celinayaa waan jeclahay waanan rabaa inaan waxaan ka caawin karo oo talo iyo fikrad iyo garab taagni iyo all of that ah. laakiinse waqtigii ayaa iska ciriiri ah, dadkina way badan yihiin maasha allah. so marka please cod ii dhaafa, qoraal ii dhaafa, and I promise insha allah tacaala biidni illahi kariim inaan idinku soo warceliyo. maasha allah technology hadeertaan waa codun baa laisku duubi karaa. facebook haddii ay tahay whatsapp oo wano hadduu qofku qoraal uu la bato cod baa la duubi karaa. annagana sidaasoo kale cod baa idinku soo jawaabi doonaa. soo saas awgeed aan iscaawin annagoo dhan oo saas aan sameynay insha allah tacaala. insha allah channelkan kusoo biira, like iyo share iyo subscribe iyo all of that good stuff. وانا ولا جعلها إن شاء الله تعالى إن كان فيديو كانوا كلا أخوكم ذا فيديو وسحنا كتجيا ماني وناكسن وفي عن أو قرحت ذا مش بشي برواقي براري كلها هنتاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.